waxa maanta magaalada Burco si ballaaran loogu soo dhaweeyay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo kamid ah warbaahinta gobolka Togdheer isagoo muddo bil ah ku xidhnaa magaalada Hargeysa isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu fidiyay cafis ilaahay Cabdimaalig xornimadiisa soo celiyay ma hadle cid kastaaba wax fikrad kasta ka qabto waxaan aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha dalka Soomaaliland oo aqbalay cafigiisii ayaanu aad ugu mahadnaqaynaa dadka soo banaan baxay baanu aad u mahadinaynaa Cabdimaalig wuxuu ahaa nin ummadda qayb ka ah wuxuu ahaa mid danyarta la shaqeeya ummadda masaakiinta u shaqeeya u adeega ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon runtii nin Burco qaali ku ah gobolkan Togdheer runtii nin ka qayb qaatay samafalka iyo u gargaaridda dadka jilicsan Cabdimaalig sidii imika hore sheegay waxaan ku naqaanay nin dad inta waalan inta taagta daran inta xanuunada la il daran inta lugahala inta jilicsan ee gobolkan ku nool iyo dalkaba nin runtii aad ugu gargaari jiray oo arinta caan ku noqday oo dalka dhan runtii looga yaqaan Cabdimaalig arinta haddaan nahay reer gobolkii Togdheer maanta halka aanu soo wada istaagnay aanu ku soo dhaweynaa waa wanaagii iyo qiimihii iyo waxtarkii aanu ku baranay qiimaha badnaa waxaan filayaa waqtiga kulul iyo inagoo xil sooman oo dadku ay sooman yihiin waan soo koobnaa waxaan aad ugu mahad celinaynaa alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay maanta halkan isugu keenay Cabdimaalig oo xora oo kamid ahaa ama aan oran karno waa shakhsiga hormuudka u ahaa muddo dheer in loo gargaaro danyarta iyo sidoo kale dadka dhimirka wax ka qaba ee guud ahaan Soomaaliland ku dhaqan isku keenay soo dhaweynta qiimaha leh oo sameynayna samafal Cabdimaalig Muuse Coldoon oo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaan cafiyay waxa leenahay dadkii jilicsanaa ayaa tabayay dadkii u gurban jiray isaga cid ka wahaa ayaa tabayay waxa leenahay Cabdimaalig mar kale adigoo nabada oo xor ah ku soo dhow gobolka Togdheer Bismillahir Rahmaanir Rahiim runtii maanta waa maalin nooga duwan haddaanay saxaafadda gobolka Togdheer ama guud ahaanba saxaafadda Soomaaliland runtii Cabdimaalig Muuse Coldoon ma ahayn wariyo kaliya laakiin wuxuu ahaa samafale runtii waxa si weyn ugu baahnaa guud ahaan dadka jilicsan ee reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer Cabdimaalig xarigiisa waxa si weyn u tabay sidoo kale guud ahaan saxaafadda Soomaaliland maanta waxay nooga duwan tahay maalmo kale aad iyo aad baan u soo dhaweynaa Cabdimaalig ku soo dhawo in ma garanaysaa Cabdimaalig Muuse Coldoon yani kaalinta dadka ugu jiray in ma garanaysaa uu cafis u sidaayo u saamaxo waxaana waliba halka ka canbaareynaya cidda iyadu codka dadka ka doonaysa ee tiri ninka noocaasaan ka toogan lahaa ama waa toogan lahaa ma laga yaabo in aad codka weydo oo istoogato waxaan marka koobaad waxaan leeyahay Cabdimaalig ku soo dhawo magaalada Burco waxaan marka labaad u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwaaqsaday in uu soo daayo Cabdimaalig ma aha wariye qura waa samafale dadkii samafalka uu waday in halkaas ay uga sii wada doonaa waxaan leeyahay ku soo dhawo magaalada Burco ilaahay ka soo saaray jeelkii madaxweynaha Soomaaliland aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa weeyaan dee way aragtaa ummaddu sidoo maxay tay ugu shaqayn jiray iminkana ilaahay baa mahadle waa ku soo dhaweynaynaa maxay tay magaaladiisii Burco iyo gobolkiisii aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waana faraxsanahay ilaahay xad baan faraxsanahay waxaan u mahad celinayaa oo aan yani aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynaha gobolka Togdheer gaar ahaan reer Burco sida diiran ii soo dhaweeyay isxilqaamay gartay inay maxay soo dhaweeyaan runtii yani aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxweeye waana mahadsantihiin barakallahu fiikum hore shir jaraa'id baan u qabtay waxweeye waanan mahadnaqay cidii mahadda lahayd Allah baa ka koow ah ilaaha suura galiyay inaan xorriyadeedii dib u helo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ilaahay baa mahad leh yani runtii waxaan kale u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan oo yani ii fidiyay cafis madaxweyne waxaan leeyahay ilaahay khayr kuwa balmariyo haddaad tahay garatay waxaan kale u mahad celinayaa yani cafiska madaxweynuhu go'aanka ku qaatay dadkii yani ku dhaliyay ee ku dhiiri galiyay ee u soo bandhigay waxaan u sheegayaa dadweynaha Burco iyo Togdheer kulley waxa weeye bilay ahayd intii aan ay socotay maxkamaddu iyo intii aan xidhnaaba waxa weeye waxaan idin soo gaaray Cabdimaalig Soomaaliland buu ka soo horjeedaa waxba aadka idin soo gaaray Cabdimaalig qarannimada ayuu ka soo horjeedaa Soomaaliland يعني arrimaha soo dhan buu ka soo horjeedaa horena waan u sheegay Cabdimaalig kama soo horjeedo Soomaaliland waxa weeye waa wax u eeg la sameeyay oo dadka loo muujiyay ama la dhexgeliyay si leega hor istaajiyo arrimo badan oo aan cadawga Soomaaliland gacanta ku fiiqay farta ku fiiqay si arrinka loo khalkhal geliyo ayaa waxa weeye la isku dayay in ikhtiyaar shakhsiyadeeda la dilo Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga RTN magaalada Burco